Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatadii ka dhacday shalay galab magaalada Muqdisho. Dadkana Soomaaliyeedna ay aad uga xumaadeen. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la gudboon cadowga inay god iyo geed aga daba galaan, cadowga aan meesha lagu sugin, waddankoo dhan la howlgalo, laguna cirib tiro nabadiidka. Cid ay u naxariisanayaan ma lahan. Cunug hadda dhashay halka ugu aqoon sarreeyo iyo cid walba xayawaan xataa ma dhaafayaan. Dadkaanu markaa ummad Soomaaliyeed oo isku mid oo isku dalab oo isku diin ayaan nahay. Marka waxaa loo baahan yahay inaan hal naqano istiraatiijiga looga hortagayo dadkan. Haddii aan gaar ahaan aan tilmaamo magaalooyinka waaweyn ee dalka, magaalada kasta oo aad adiga degan tahay, dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waa in loo sameeyo boodharo waaweyn. Adresku xabad maahan. Guri kastaba waxaa la suraa nambarkiisa. Bir yar iyo shamiito yar iyo dhagax waxba qaadamayso. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si free ah ku shaqeynayaan. Guri kastana waxaa la kor tagayaa liis iyo qofka magaciisa iyo intuu dhalay iyo intii la dhalatay intuu dhalay oo kaliya ah. Guri walbo iyo ninka iskale iyo intii degan oo shacaba ayaa la rabaa in la diiwaan geliyo sharciyadooda ayaka waxay yihiin iyo adreskooda oo gacanta loogu waday. Dhalinyarada Soomaaliyeed daba taagan tahay magaalooyinka waaweyn gebigoodba. Waxaa soo hareen haraygan in asagana ma arkin oo meel kasta oo jooga la beegsado, loogu tago qeybaha miyigoo dhanna ma arkin oo roonda lagu fidiyo, lugta lagu galo, kor looga yimaado, laguna cirib tiro. waxaa soo hareen xarumaha shidaalka, xarumaha meelaha yaryar ay dadka gaaska ku iibsadaan, in ay ahaato laga fogeeyo meelaha suuqyada ah, meelaha waaweyn ay dadka populationka ay isugu yimaadaan. Waxyaabahaas oo dhan laga taxdiraa hal rabaa. Dadka businesskiisa ah wax loo geysanaa laga rabaa. Qeybaha shidaalkana istiraatiiji loo isticmaalo. Waxaa soo hareen jidadka waaweyn oo haaweyga oo magaalooyinka dhex maraayo, baabuurka oo maraayo waa in uu boodharka soo maraa. Gaar ahaan si aanan caadi ahayn guryaha, garaashyada, guryaha aan la deganaynin si fiican loo dabagalo. gaar ahaan aniga waxaan aaminsanahay mashaakilkan sida kaliya ee looga hortagi karo waa in shamiito, dhagax iyo godkii la qodi lahaa oo guri kasta iridiisa lagu rakabi lahaa number iyo adreska iyo wadada magaceeda. Magaalada Muqdisho 4 jid ayaa soo gasha. Lama waa xeebta, lamana waa Afgooye iyo Balcad boodharkii ilaa Afgooye la xiraa. Markaasna gurmadka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay gaar ahaan indhahooda furaan. qof kastana gurigiisa inta loogu tago adreski, magaciisa, baasaboorkiisa iyo wuxuu yahay farihiisa laga qaado. Hal kombiyuutarna la isugu keeno magaalooyinka, kadibna international laga dhigo kulligood. Qof kastana farihiisa iyo magaciisa iyo baasaboorkiisa la helaa iyo waxa uu asaga leeyahay hanti iyo waxa uu guryo uu leeyahay iyo markaas intii ciyaala uu asaga dhala hadduu nin yahay iyo hadduu naag yahay. Magaalooyinka Soomaaliya waa wax fara ku tirisa. qarash badanna geli maayo kontaroolka noocaas haddaan noocaas aanan looga hortagin mashaakilka jira dhammaan maayo. dadka Soomaaliyeed waa inay cadowga ay meesha aynan ku sugin ay si wada jira looga howlgalaa. gobolladayna dhinac walba oo shacabka Soomaaliyeed
amba adduunka ku noolaado waa in aan ka hortagnaa ununka waxaan u baahannaha dalkayna wuxuu u baahan yahay nabad adduunka wuxuu u baahan yahay nabad ma arkino dowladaha waaweyn oo joogaan maraykanka turkiga iyo dowlado kale waaweyn waxay rabaan khatarta kusoo wajahan dadkan ay ummadda ku ciribtirayaan inay ka hortagaan soomaali dabcan gaaray ka taha dadka ka hortagaayo gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan dhihi lahay fariintaas ayaan aga qayb qaada lahay intii dhimata allaha u naxariisto arrintan taariikhda way qori aadayna ummadda soomaaliyeed aga xun tahay marka ummadda soomaaliyeed gurmad dhiigga ha la shubo dadka ha loo gurmado takhaatiirta si for free ah ku shaqeeyaano fadlan waxaa idinka codsanaa takhaatiirta iyo dadka dhiigooda uu yaryahay dhiigga ha lagu tabaruco sida ay mas-uuliyiinta ay dhiig u shubto qof kasta dhiiggiisa hanti wuxuu haysto takhaatiirta free inay maarkino ka qayb galaan dadkan waa dad khatar ku ah adduunka oo dhan soomaali haddaan nahay inaan indhahayna furno ka hortagnaa dadkaas god iyo geed meesha ay soomaali ay joogaan looga hortagaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ummadda soomaaliyeed meel kastoo adduunku nooshiin waa maalin murugo badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh